السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة وأملي يوتيوب channel كان قدام نسوي فرح سيد هذا نقول عصبته ونقال صدو هذا هورين أول جبت سيدا وكله. welcome back to my YouTube channel. ما أنت فيديو قانو أسميه سوي بشرة أو قد محيل السائد ده يلا يقصعد صدي ما دام أنا وهندي أكون رقنا هاي وحيابها information كأوجب عن تنين إذن سوق فيو وواحد شوبه. أنا إذن فدية وحول بس عشان ويسوي إذن كرتان إن شاء الله وأنا إذن سهلني. dad badan ayaa soo weydiiyay hindiya sideen ku imaan karnaa oo ugu fudud wadooyin baa jira oo fudud aad maaragtay ku imaan kartid waxaana kamid ah sidaan tan koowaad horta waxa ku soo gali kartaa caafimaad ahaan waxa ku soo gali kartaa waxbarasho labadaas wada ku fudud dadka badanaa waxay ka dalbadaan fiisaha Nairobi Ethiopia meel kale hadda soo baxday ma sheegin laakiin labadaas ugu fudud especially Nairobi ugu fudud oo dadku fiisaha ka dalbadaan especially haddaad tahay qof caafimaad waddanka raba inuu ku soo galo aad ay kugu fududahay maxaa yeelay wax laga yaabaa bil ama bil ka yar inay waxa kugu sahlamaan haddii aad heshid maaragtay dad ku sahliya especially Nairobi waa kaaga fududaanaysaa dadka waxbarashada soo haray aniga markaan waddanka soo galay ama aan fiisihiisa raadsanayay adigu muddo waxay igu qaadatay adigu bil ba iska dhigi kartaa ama bil wax ka yar maadaama anu marka hore waxa xaraystay China rabay inaan aado waxaan tagay Djibouti 3 bilood baa joogay si maaragtay China aan u xaraysto haddana way suurtagali weyday maxaa yeelay ma garanayo way soo reject gareeyaan dan Hindiya xaraystay Hindiya ay soo baxday ilaahay mahadiis marka waxa kugu fududaanaysa tan koowaad haddii aad tahay qof caafimaad ah waxa kugu fududaanaysa inaad Nairobi ka dalbatid fiisahaaga dad way jiraan su'aalahan way soo laabteen dad way jiraan isoo weydiiyay oo dhahay meesha UN ma leedahay dabcan way leedahay Hyderabad maaha laakiin waa Delhi xuruntooda weynaatay ku leedahay Delhi weeye dad badan waxa jira caafimaad waddan ku soo galay dan ku fakiray UN-ka ilaa hadda way joogaan dadna waxa jira nasiibkoodu meeshaas intuu uga qoray adigu sanad ilaa 2 sano ilaa 3 sano gudahood ku dhoofay oo meelo kale loo diray maxaa yeelay UN-ka process-kiisa wuxuu yahay yani dad qof waxa tahay maxaa la dhahay doonay in la diro soo waxba sheeganaysa dan wixii hadii Ilaahay kugu suurtageliyo waa lagu diri karaa dadka waxbarashada ku soo haray horta Hindiya waxbarashada way fiican tahay jaamacadaha ugu waaweyn oo ay ardayda Soomaalida wax ka barato waxa kamid ah jaamacad la yiraahdo Osmani University waxaad booqan kartaan page-kooda jaamacadaha way kala fiican yihiin anaga ahaan jaamacadda Osmani halka ka noogu sareysa Hindiya oo dhan uma hadlay aniga Hyderabad baa u hadlaya so iyo kuwa kale maaragtay Delhi waxaas ku yaala hadda doonayso waxbarashada waddanka ku soo gasho waxa noqonaysa inaad marka hore fiisa dalbatid dan process-ka xogaa yar dheeraan laga yaabo 3 bilood 2 bilood inay kugu qaadato laakiin waa worth it maxaa yeelay worth it waxa la jeedaa yani waa wax aad u fiican waxbarashada Hindiya waa important marka loo barbar dhigo waddanka waxbarashadiisa sababtan ku sheegaya aniga waddanka markaan ka imaanay xogaa waa soo kalsoonaa qof maaragtay heer waxbarasho si fiican wax ugu soo baratay baan ahaa Hindiya markaa imaaday jaamacadeedu way ka duwan yihiin way ka adag yihiin ma fududa ha fududaysanina hadda jaamacada waxa jira sida aniga taan dhigto kale waxa la yiraahdaa Rhoda Mystery College waxay bixisaa kaliya social work ma hane wax kale kuma qosayso ama afaara kale ma laha jaamacada kale jira oo mid hadeer Nizaam College baa la yiraahdaa waxa dhigtaa maasha Allah Soomaali badan baa dhigata faculty kala duwan bay bixisaa aniga tayada waxa ku beegmatay mid hal maad kaliya bixiso ah social work asi kala baxbaxay yani waa caawinta dadka caawinaad bay qosaysaa sideedaba yani dadka caawinaysa wax badanaa isku shaqo yihiin qoliyaha UN oo kale hadda doonaysa inaad waddanka wax ka baratid maasha Allah way fiican tahay tan koowaad aan idin kula talinayo marka waddanka soo galaysaan waxa weeyaan anaga maana ogsoonay laakiin aniga hadda idin sheego ay iga faa'iidaan waa muhiim maxaa yeelay anaga classka markii ugu horeysa aan bilaabeynay classka waxaan la dhiganay Hindida basically 2 sano ku soo khasaariyaan si ay maadadaas marka hore u xifdiyaan ee u bartaan waxay khusayso maadadu waxay tarto faa'iidooyinkeeda kulli conceptiga dhan ee maadada baranayaan ayay 2 sano ku soo khasaariyaan soo maalmihii ugu horeysa waxa dhici jirtay oo kale hadda
maamulada ama macallimiinta meesha joogo kale su'aal bay noo weydiinayaan ku khusaysa maadada ama maadada maaha hadda kaba soo qaad environmental development baa ku jirta class ah so waxa lagu weydiinayaa what's environmental development adoonan weli sabuurada lagu qorin jawaabteeda gacmaha la wada taagaya anaga laakiin ma fahansaneyn yani waxaan isdhihi jirnay maxaa ka khaldan dadkan yani yaa usoo sheegay ma google-kay geliyeen ma seebay ku ogaadeen because anaga markaan kursiga soo fadhiisanayna maalinkaasaa noogu horeysay environmental development waa maxay khusaysaa maxay ka hadlaysaa maadada dhammaystiran gacantaa la wada taagaya waa laga wada jawaabaya maana fahansaneyn dan waxaa soo galaysa macalimaad kala soo galaysa waxay naga weydiinaysaa social work waa maxay ma garanayno because de macluumaadkii ma hayno so anigu waxaa idinkula talin lahaa intiidan jaamacadda xaraysan please and please maadada aad doonaysa si fiican concepti uga qaado oo si fiican u fahan hadda kaba soo qaad waxaa dhacday inaan wadanka soo gashay oo jaamacadihii bilaabmay ah kusoo beegmatay muhiimada waxaa saartaa inta maaragtay 6 bilood ama kaba soo qaad jaamacada bilaabantay baa soo gashay English waa lagu bilaabaya waa ku qasbantahay inaad maadada English ka qaadatid maxaa yeelay waxa ku helaysaa visa stay ah waxa xoog saartaa sidoo kale maadada xareysatay dhankeeda inaad xoog u saartid oo maaragtay aad baratid taas waxay ka caawinaysaa college-ka markaa gashid in maaragtay ardayda aad la jaan qaadid hadda kaba soo qaad waxay haystaan syllabus ama maaragtay maadooyinka aan dhiganayno waxoodo dhan bay haystaan oo warqado intay soo daabacadeen computer ahaan kusoo daabacadeen bay wada haystaan si maaragtay imtixaan kaba soo qaad waxa la wada keenayaa oo anaga meeshan ka naxsanayn jirna waxay ahayd college-ka markaan bilaabeynay anaga waxaan ku fikiraynay kaliya waxay ahayd ilaahow aan baasnaa yani dee qof walbaa ku fikira ilaahow aan dhacnaa cidna isma dhahaysa laakiin ilaahow aan baasnaa waxaa la jeedaa ilaahow aysan nagu soo laaban maadadan ilaahow aysan nagu soo laaban maadadan laakiin Soomaalida saa u fikiraysa laakiin dadkan Hindida waxay ku fikirayaan kaalin gal college-ka wuxuu leeyahay meel yar oo board ah oo maaragtay qof walba kaalintuu galay 5 qof oo ugu horeyso kaalimaha hayga haysta baa lagu soo announce garan jiray waxay ka dhiman jireen kaliya kaalinta maanu galin anagana waxaan ka dhiman jirnay kaliya waynu ku soo laabatay maadada maxaa yeelay maadadaanu si fiican u fahmeyn oo maaragtay aanan diyaarin aanan waqti galin kaliya galaaska soo xaadiranay macallimada waxa laga yaabaa in luqad kale ku hadasho luqadooda dadkan basically halka kan Englishkooda aad buu xun yahay soo waxa dhici karta in Hindi lagu hadlo ama Telugu macallimada way silmaamaysaa because luqadda ay u dhalatay English maaha galaaska majority ku jirta oo dhanna waxa weeyaan wada Hindi soo waxay ku qasbantaa in maaragtay maadadu sheegaysaa waxay baraysay sheegaysaa waxa laga yaabaa inay dabada u qabato Telugu ama Hindi way silmaamaysaa taas khalad kuma laha laakiin waxa muhiim ah adiga inaad yeelatid schedule adiga waxaaga diyaarsatid anigu ardayga Hindi doonay inuu wax ka barto waxaan jeclaan lahaa inuu wadada raaco uusan isdhihin galaaska kaliya wax lagu barayaa because galaaska wax saas kuma baranaysid qurbo dhan baa saas qofka markuu dibadda wax ka baranayo oo dhan baa saas waxa laga yaabaa college-ka in lagu baro lagu dhaho social work wuxuu qaabilsan yahay kaliya waa service ah dadka aanan hadli karin ayay u hadlaan sida maaragtay dadka aanan karin inay cabashadooda sheegtaan oo kale bay u hadlaan uma hadlayaan yani dee qofka kanan matalayna uma hadlayaan kaliya yani way tusayaan wadadii oo way u sheegayaan saas oo kale waxaan jeclaan lahaa taas ardaynimada inay insha Allah xoog iska saaraan aysan wadada anaga marna oo kale aysan marin insha Allah waxa ku soo hartay qofka caafimaadka haduu doonayo wadanka inuu soo galo waxaan kula talin lahaa qof inuu hore soo kaxaysto luqadda English-ka yaqaan maxaa yeelay cabasho aad u badan dadka markaa dadka caafimaadka sayidka u wareystay wuxuu ku leeyahay anaga dhibaato naga qabsatay lacag baana laga dhacay dhakhtarkii anaga isma fahmayna maxaa yeelay wax laga yaabaa inay soo kaxaysteen qof maaragtay kaliya waxay ka fikirayeen kaliya qofka kana ku haynaya wax walba u baahan tahay ku keenaya kama fikirayaan qofka luqadda ma yaqaana maxaa la dhahay wax ma garanaya dhakhtarkii ma kala hadli karaa cabashadaada ma u sheegi karaa
please qofka hadad qof caafimaad hada wadanka keenaysan qof waxa soo kaxaysa waxa qof soo raacsan English ki yaqaana oo dhakhtarki maaragtay si fiican ula hadli kara maxaa yeelay tuugnima meesha tan aad ugu badan Hindiya waxa laga yaabaa dhakhtarka inuu ku khiyaano waxa laga yaabaa lacagta lagu qalayo ama lacagta aad dawooyinka iyo waxa ku doonaysid double-keed in laga qaado maxaa yeelay adiga waxa tahay qof foreigner ah aniga hadda college-ka lacagtan ku dhigto iyo qofka Hindiga lacagta ku dhigto isku lacag maaha maxaa yeelay aniga banaanka ka imaaday qof ajnabi ah marka insha Allah process-kaas loo maraa qofka caafimaadka ah waa inuu qof maaragtay English ka yaqaan si fiican u garanaya yani saytaan fiicanta qof walba dhigi kara qof aan dhigi karin ma jirto qof si fluent ugu hadli kara oo caawin kara qofka kan bukaanka ah ha soo ka haysto process-kaas uu yari Hindiya hadda doonaysa inaad imaatid ama waxa ka dalbanaysaa fiisaha Nairobi ama Ethiopia Nairobi ugu fudud sidoo kale qofka waxbarashada Nairobi ayaa ugu fudud waxbarashadeeda maasha Allah weeyaan waa imaan kartaan laakiin waxay kaaga baahan tahay wadan qurba marka imaanaysid maskaxdaada furan iyo adkaysi badan hadda waxbarasho imaanaysid qurbo waa in adkaysigeeda lahaataa hay'ad wadanka ka soo tagaysaa waalidku ma joogo waa in cabashadaadu yaraato waa in adigu maaragtay maciishadaada samaysato waa in adiga iskeer garayso cidna kuma joogto kuma dhahayso kac waxa samayso kac waxbarashadaada diyaarso kac imtixaan baa soo socda cidna kuma dhahayso cid dabada ka wada ma jirto waa adiga kaliya markii qurbo lagu soo dirayna qofka waxbarashada baan la hadlayaa markii qurbo lagu soo dirayo reerku way ku testigareynayaan oo ku soo direen maxay aad dalbaday in qurbo lagu keeno waa lagu testigareynaya waxa la tijaabinaya yani qof meel iska soo saari karta ma tahay qof kaligiis maaragtay aanan qofna u baahan maadaama kaliga tahay qof macnaa family aad u baahan inaad noqon kartid qof maaragtay meel iska soo saari kara marka aad doonaysa Hindiya saas weeyaan Hindiya nolosheedu saas dhan uma adka qofka adkaysta sidoo kale dadka dhahaya Hindiya waa raqiis waa been raqiis ma guriyaha waxa lagu dagaa qofka caafimaadka ah guriga wuxuu ku dagaa almost $500 maxaa yeelay gurigu hagaajisay 500 hadaysan ka badnayn guriyaha normalka ah weey 300 waa ku heli kartaa sharing waa gali kartaa dad caafimaad guriga wada kristaa jira because qol ba ka degan tahay adiga qofka kula wada qol ba wada degaysan qolka kale qofka la sharing galaya dulqaadkeeda taasna leedahay maxaa yeelay qof aadan maaragtay isku dabeecad ahayn baa laga yaabaa inay guri wada degtaan taasna way jirtaa lacagta halka kana raqiis ma aha qofka waxbarashada u imaanaya taasa ugu daran qofka waxbarashada u imaanaya guriga markuu degayo wuxuu u baahan yahay gaaska inuu soo dhigto wuxuu u baahan yahay meeshu seexan lahaa wuxuu u baahan yahay wax walba so xogaa maciishadu maaragtay saas raqiis uma aha minimum halka kan dadka waxbarashada waxa loo soo diraa 300 baa ugu yar waxa loo soo diraa $400 maxaa yeelay waa qaali halka kan wax walba qaali mar dambe yaanan maqal qof dhahay Hindiya waa raqiis hadda doonaysa Hindiya qiimaheeda dhabta ah waxa ka wareysataan kaliya qof ama Hindiya jooga ama qof Hindiya ka soo tagay maxaa yeelay dadkaas ay fahmi kara qiimaha halka kan meel raqiis ma insha Allah I hope inaad iga faa'iideen videoga kan wuxuu ku sameeyay dad doonay inay imaadaan meesha tan I hope inaan information ki idin soo gudbiyay haddaan wax hilmaamin ay xasuusiyo insha Allah next video baan idin ka soo duubaya haddii la yiraahdo waxaan idin rajaynayaa khayr badan haddaad nagu cusubtaan naqaali soo dhawo hadda hore noo joogto sidoo kale soo dhaweey wacan walaad soo dhawo sidoo kale waxaad noo saartaa walaalo subscribe-ka like videoga noo saar haddaad ka heshay commentigana ha naga hilmaamin khayr badan baa idin rajaynaya insha Allah waxaan noo balana video ku xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh